kulankan maanta xarunta qasriga madaxtooyada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ku dhexmaray madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo safiirka dalalka Soomaaliland iyo Soomaaliya u qaabilsan wadanka UK Ambassador David Conker ayay madaxweynaha safiirku kaga wada hadleen arrimo badan oo khuseeya mandaqada Geeska Afrika iyo dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland arrimahaasi oo ay ka mid yihiin wada hadaladii dalalka Soomaaliland iyo Soomaaliya hore ugu socday oo muddooyinka ugu dambeeyay hakad ku jiray sidii dib loogu bilaabi lahaa isla markaasina hanaankii geedi socodka wada hadaladaasi looga gaari lahaa xaqiiqo taabata dareenka labada wadan sidoo kale waxay safiirka iyo madaxweynuhu ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland u qoondeysay inay ka qabsoomaan horaanta sanadda 2019 iyadoo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu cadeeyay safiirka inay ka go'an tahay ka xukuumad ahaan in doorashooyinku ay xilligoodii ku qabsoomaan isla markaana dhaqaalihii kaga aadanaa xukuumadda qaadaanka qabsoomidda doorashooyinka ay xukuumaddu hore u shubtay sidoo kalena ay wadanka Ingiriiska iyo cid kasta oo ka qayb qaadata geedi socodka hanaanka dimuqraadiyadda doorashooyinka Soomaaliland oo wadanka Ingiriisku uu ka yahay oo madaxweynuhu u bandhigay inay ka qayb qaataan isla markaana ay soo qadimaan qaybtii kaga aadanayd sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland iyo safiirku waxay ka wada hadleen wadada isku xidha Berbera iyo Wajaale Berbera corridor oo ay dalka Ingiriisku danaynayaan inay ka qayb qaataan hirgelinta dhismaha wadadaasi dhanka kale waxay madaxweynaha Soomaaliland iyo safiirku ay ka wada hadleen mandaqada degenaanshaha iyo horumarka Geeska Afrika iyo saameynta ay ku yeelan karto isbedelada ka socda madaxweynaha Soomaaliland wuxuu safiirka uga mahad celiyay booqashada uu ku yimi Soomaaliland iyo sida dalkiisa Ingiriisku ay diyaarka ugu yihiin mar walba horumarka Soomaaliland isla markaana ay u barbar taagan yihiin iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyayna uu safiirku ku sugnaa dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka qayb qaadanayay horumarka dalka ka socda safiirka dalalka Soomaaliland iyo Soomaaliya u qaabilsan wadanka UK wuxuu madaxweynaha ku bogaadiyay horumarka fiican ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka socda iyo Soomaaliland sida ay diyaarka ugu tahay horumarka iyo amniga mandaqada sidoo kalena Soomaaliland sida ay uga go'an tahay inay sii wado ambaqaadkii doorashooyinka ee geedi socodka dimuqraadiyadda dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland